السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيتهي walaal. وفيعنا الحمد لله. maxaan ka caawinaa? walaal talabaan u baahnaa. hagaag waa kan tala same u talaab arrintaada. niyow inantaan istiraadaba baro ee aan doono inaan guursadaba way iga fiigtaa. garan maayo dhibaatadu halka iga haysato. marka waxaan doonayaa inaan noqdo qof soo jiidasho leh. ma garanayo sababta la iga cararayo. ani waxaan ku ibtileysanahay xoogaa faanka badan iyo weliba inaan dad kale iska dhigdhigo oo aan yacni qof shakhsiyad weyn leh inaan isku muujiyo oo kale. sidaas ayaan inta badan xiiseeyaa laakiin gabadhan bartaba way iga ordaysaa way iga fakanaysaa waxay leedahay niyow maya anigii adigu ma wadan socon karno safaaradaha noo kala qaad. marka talan u baahnaa. hagaag ku soo dhowow waxaa jira 4 shay oo ay dumarku ku qiimeeyaan ninka ragga ah dad badanna kama ay warqabaan 4taasi qodob. waa laga yaabaa qofku si dabiici ahaan ah inuu ugu abuuran yahay arrimahan aan sheegi doono laakiinse haddii aadan horay u ogeyn hadda ogow. qodobka koowaad wuxuu yahay naxariista. dumarka in loo naxariisto waxay ka mid tahay waxyaabaha ay diintu nafartay kana mid ah waxyaabaha quruxda badan ee laga doonayo ninku inuu kula dhaqmo xaaskiisa. dumarkuna aad ayay u qiimeeyaan ninka naxariista badan. naxariista ay dumarku qiimeeyaan ma ahan oo keliya mid iyaga loo naxariisanayo balse xitaa waxay qiimeeyaan sida ninku uu ugu naxariisto dadka kale. dumarka waa ay ka cararaan ninka adag ee aan naxariista lahayn aadka u qalafsan. qodobka xiga ee labaad waa kalsoonida. dumarku waxay xiiseeyaan ama ay jecel yihiin ama ay doorbidayaan ninka kalsoonida leh. marka laga hadlayo kalsoonida ragga qaar ayaa waxay ku qaldaan faanka iyo isla weynida kuwaas oo ay dumarku aad u necab yihiin balse kalsoonidu taas ma ahan ee waa in ninku uu aaminsan yahay nafsadiisa iyo awooddiisa inuu ku qanacsan yahay shakhsiyaddiisa isla markaana uu leeyahay kalsooni uu wax ku qabsan karo haddii ay noqon lahayd howlaha nolosha sida shaqada waxbarashada iyo wixii la mid ah. qodobka saddexaad waa dabeecadda. bini'aadamka oo dhan ayaa jecel qofka dabeecadda wanaagsan qofka furfuran ee bashaashka ah. dumarkuna waxyaabaha ay ku qiimeeyaan ninka raganimada leh waxaa ka mid ah dabeecad wanaagga inuu yahay qof farxad badan oo dadka kale si fiican ula macaamili kara inuu yahay qof bulshaawi ah oo dabeecaddiisu ay soo jiidanayso dadka kale qof ah sida magnadka oo kale oo dadka soo jiidanaya mar walibana aan hareerihiisa laga weyn dad faraxsan wejiye qurxoon oo ay ka muuqato bulshaawanimadu iyo dabeecad wanaaggu. dadka oo idil 100% shakhsigaasi waa ay ka helaan xitaa waxay xiiseeyaan in ay bartaan oo ay qofkaasi xiriir la sameeyaan yacni waxaan ka wadaa xiriir in ay saaxiibkaa dhigtaan ay jecel yihiin maadaama aad tahay qof bashaasha agtiisana ay ka helayaan farxad. qofka bashaashka ah ee furfuran inta badan dadku waa ay soo raadsadaan sababtoo ah xilligay murugaysan yihiin wuxuu ku beerayaa farxad xitaa haddii uusan wax qosol leh u sheegin wejigiisa bashaashnimadu ka muuqatay dhoolla caddayntu ayaa waxa uu yahay mid iyaga soo jiidanaya markaa ayay iska hilmaamayaan wixii markaa iyaga haystay oo culays iyo dhibaato iyo caqabadaha. sidoo kale diinteennunu aad ayay u ammaantay in aad walaalkaaga muslimka ah la kulantid adiga oo wejigaagu furan yahay oo arrintaasi waaba sunno. waa wax wanaagsan inaad ahaato qof dhoolla caddeeya markuu la jooga asxaabtiisa ama mar walbaba iska ah qof dhoolla caddeeya. dhoolla caddayntuna maahan doqonnimo ee waa xeelad qurux badan oo lagu ugaarsado quluubta dadka. qodobka ugu dambeeya waa deeqsinimada. dumarku way qiimeeyaan ninka deeqsiga ah bakhiilna cid jecel ma jirto. deeqsinimadu ma aha nacasnimo oo iska bixi macno darro ah. dumarku waa jecel yihiin ninka xisaabtama balse waxay qiimeeyaan ninka deeqsiga ah ee sadaqada bixiya dadka baahan daryeela qaraabadiisa iyo asxaabtiisa sidoo kalena daryeela oo gacan u fidiya haddii marka ay u baahan yihiin gargaar iyo haddaysan u baahnayn. waxay qiimeeyaan ninka iyaga laftooda deeqsi u ah oo aan waxba ka hagran. qodobadan aan kuu soo sheegay oo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay dumarku aadka u jecel yihiin in ay ku arkaan ninka ragga ah ee ay xulanayaan. intaa hadday kugu arkaan adoo ku sifaysan dhab ahaan waxaad noqon doontaa qofkay doonayeen. waxaan kuu rajaynayaa inaad ka faa'iiday fii amaanillaah.